xulka qaranka Masar ayaa iska xaadiriyay finaalka koobka qaramada Afrika kadib markay garaaceen xulka martigelinayay koobkan ee Cameroon kulan rigoorayaal ku dhammaaday. Kulankan ayaa ahaa mid aad u adag, labada xulba ay soo bandhigeen ciyaar aad u sarreysa. Labada xul ayaa si fiican u adkaystay daafacooda, iyadoo koox walba iska ilaalinaysa inay daafacoodu khalkhal sameeyo si gool looga dhaliyo. Ciyaarta ayaa 90kii daqiiqo kusoo dhammaatay barbaro gool la'aan. Kadib labada xul ayaa isla gaadhay waqti dheeri ah iyadoo lagu daray ciyaarta 30 daqiiqo si ay u kala hadhaan midkoodna ugu baxdo finaalka tartankan. Xulalkan ayaa isku dhaafi waayay waqtigii dheeriga ahaayee, taasoo keentay in rigoorayaal loo laabto midkood siduu ugu baxo finaalkan. Xulka Masar ayaa nasiib u yeeshay inay gaadhaan finaalka kadib markay Cameroon keliya ay dhaliyeen hal gool, 4 rigoore ay tuurteen, halka sidoo kale ay Masar dhalisay 4 rigoore ay tuurteen. Waxaana ciyaartan xiise u yeeli doona waxaa iska hor imaan doona Mohamed Salah iyo Mane, kaasoo labaduba ay ka wada tirsan kooxda Liverpool. Sidoo kale goolkiibaha Chelsea Mendy ayaa isaguna raba inuu koobkan u qaado kuna darsado UEFA Champions League. Haddaba ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar aad u xiiso iyo xamaasad badan, kaasoo keentay in la isla aado waqtiga dheeriga. Labadan xul ayaa ah labada xul ee ugu khatarsan Afrika, uguna koobabka badan, isla markaana ah xulalka ugu waaweyn Afrika. Waxaa la sugaba waxay noqon doontaa Senegal iyo Masar, keeba ayaa ku guuleysan doona koobkan qaaradda Afrika.